السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دكتور محمد ليبان محمد دمان أصحابته إيجو حيراني أنت مو عصب وحنا دليا وما سنتين سيدا يقولوا سقطان برنامجات كأن سوق ليو ما أنت وحنا لما يسترينا هدي على إدمو عذر كي أنا هو وصل هذا روماتيزم كأم روماتيك أرترايت طبعا عذر كوح وليه إنه ستوس وحي هذا مرولبو ما لها كلا بحياة دمان لفها جرك بنادم وليه qaybihiisa kala duwan wuxuu galo si gaar ah u sii saameeya synovial membrane-ka xuubka isku haya labada lafood dhinacyada isaga hayo oo ayuu saameeyaa taasoo uu ka dhigayo caabuq iyo burbur qofkana uu ku yaraan karo socodkii iyo laabitaankii cudurkan wuxuu leeyahay calaamado badan in barar lagu arko kala baxidii in dikaan badan lagu arko xanuun badan uu jiro mar walba qofka uusan ka socon karin subaxii markuu uu soo kaco inuusan istaagi karin lafihii iyo murqihii iyo qaybaha hoose cagta ee aad u xanuunaya haddii cudurku uu sii socdana waxaa la arkaa in qofkan qaab ahaan iyo nooc ahaan lafahu inay isbedelayaan tusaale ahaan lafaha inay noqonayaan kuwo aad u leexma ama dhinac u bata waxaa kaloo lagu arkaa lafaha in meelo qaarkooda ay kasoo muuqdaan kuukuus ama buruq haddii cudurku muddadaas uu sii socdo waxaa laga yaabaa cudurku inuu sii saameeyo qaybo kala duwan ee jirka bani'aadanka sida maqaarka murqaha wadnaha iyo kelyaha marka qofka uu isaga shakiyo waxaa muhiim ah inuu ka gaaro baaritaan uu sameeyo daawooyinkan uu isticmaalo dabcan haddii uu noqdo cudurku muddo dheer inuu qofka uu sido ama uu la xanuunsado wuxuu noqonaa qofkaas inuusan hadhow si fudud cudurkaas ugu bixin ama uusan ugu wareysan waxaa muhiim ah inaad dhakhtarkaaga u tagtid aad la tashatid baaritaan lagu sameeyo baaritaanada lagu sameyn karo waxaa ugu horeeya in lagaa qaado dhiigaaga guud in la ogaaday inuu jiro antibodieski in burbur uu ku socdo ama difaaceedkaaga sidoo kale in x-ray lagu saaro raajo lagu saaro la arko dhinacyada lafaha inay noqdeen kuwa synovial membrane-keeda uu inflammation uu jiro bararna uu jiro synovial fluid-ka ama cartilage-kana dhaawac uu gaaray carjawda sidoo kale waa muhiim in dhiigaga kale ee lagu aqoonsan karo in cudurkan ay macquul tahay inuu jirkaaga ku jiro sida factorka rheumatoid factor in laga qaado rheumatism-ka testska la sameeyo ka mid ah ESR-ka la hubiyo sidoo kale in la ogaado anti-CCB oo lagu ogaan karo ama fududeyn karo in rheumatoid factor-ku uu aad u jiro uu jirku ku jiro waxaa kaloo muhiim ah in la baaro CRP-ga dhammaan qaybahaas aan ka soo hadalnay waxay fududeyn karaan in diagnostic sax ah cudurka laga gaari karo marka aan u imaano daawooyinka qaybahooda kala duwan daawooyinka waa muhiim qofka inuu marka laga helo rheumatoid factor inuu yahay jirkiisa inuu active uu ku yahay waxaa loo kala qaadi karaa daawooyinka short term iyo long term in qofkan uu kala isticmaalo kuwana inay ka hortagaan cudurka cawaaqibka uu jirku ku reebayo iyo in waxyeeladiisa ay yareeyaan kuwana in dabcan waqti dheer la qaato inaysan cudurka waxyeelada saayida uu sii sameyn meeshan uu ku yaraado iyo kuwa dabcan xanuun baabiyaal ah dabcan kuwa long term-ka waa kuwa muddo soconayo qofkana aad ugu yareynayo burburka ku socdo synovial membrane-ka synovial fluid-kii yaraade iyo cartilage-ka hadduu dhaawac jiro dabcan daawooyinkaas waxaa loo yaqaanaa disease modifying antirheumatic drugs waxaana ka mid ah daawooyinkaas hydrochloroquine iyo methotrexate dabcan waxaa kaloo loo isticmaali karaa long term in qofka uu qaato sidoo kale daawooyinka short term-ka soconayo kala dagaalayo cudurka inuusan sii laxaadsanin ayagana dabcan waxaa ka mid ah daawooyinkaas tumor necrosis factors daawooyinkaas waxaa ka mid ah short term-ka infliximab iyo rituximab dabcan waxaa qofka la siini karaa waxyaabo kale oo anti-pain killers ah xanuunka yareyn kara bararkana ka dejin karo daawooyinkan waxaa loo raacin karaa non-steroidal anti-inflammatory drugs sida ibuprofen-ka naproxen-ka waxay qofka ka yareynayaan xanuunka saayidka ah dabcan waxay kaloo ka baabi'inayaan inflammation-ka ama caabuqa sii saa'iday dabcan qofka kuwaasi wuxuu qaadanayaa in adiga ku siman isbuuc camal sidoo kale qofka marka uu daawooyinka u bilaabo keliya maahan inuu daawo u qaato waxaa muhiim ah lifestyle change inuu sameeyo isbedel xagga dhaqankiisa inuu la imaado inuu qofku xoogaa socodka uu aad u badsan karo
in dabcan dhaqdhaqaaqiisa oo aada u badin karo, inuusan noqonin qof guriga iska fadhiya, physical activity badanna aana sameyn. inta aad daawada qaadanaysid waa muhiim inaad la qaadatid cuntooyinka kaa saacidayay in awooddaada jireed ee kor u soo kaco. waxaa ka mid ah baamiyaha wuxuu aada u soo xoojiyaa dhacaanka ku yaraanayo kala baxyada. sidoo kale waa inaad isticmaashaa sanjibiilka wuxuu awood u leeyahay wax walba oo infection oo bacteria markay ay dilaacaan saameyntoodu inay aada u yaraato, inuu ka hortago khataraha ay sii sameyn karaan. waxaa kaloo aada u isticmaalaysaa maadada loo yaqaano zingiga iyo potassiumka, awood badan ayay kuu siinayaan in lafahaaga ay xoojiyaan, in kala baxyadaada caabuqa ay ku yaraadaan. waxaa kaloo muhiima inaad joogtaysid tuunta iyadana waxay ka qayb qaadataa inay yareyso marka infectiono uu dilaaco ama bacteria ay dilaacdo ama waxyeelo badana cudurkaas inuu ku reebo jirka qaybihiisa kala duwan. wuxuu ku sameynaysaa inay ka baabi'iso, inay ka yareyso jirka. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, daaweynta iyo habka aad ula tacaali lahayd cuntooyinka ku habboon cudurka rheumatismka halkan ayaan kusoo gabagabeynaa. waxaan idin leeyahay aada iyo aada u mahadsantihiin dhegeysiga iyo fiirsashada. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.